السلام عليكم أصحابتي وسلامتي الملك joogtaan asxaabtii waxaan doonaya maanta cashar iyo raado kooban oo arday ka mid ah iga dalbaday in asxaabta iyo casharkaas waxa weeye sideeba loo sameeyaa fake Facebook posting iyo abuura kaasoo markaas ay ka muuqdaan eegaado badan siin aan badan iyo markaas viewers aad badan ay ka muuqdaan oo ah sida postiyada caalamiga oo kale markaasi loo sameyn karayo asxaabta marka casharkan kaliya tan waxaan u soo dhigayaa educational purpose oo soo dhigayaa please wax kala isticmaalina ama been abuur kala isticmaalina inta asxaabta wada ka digaya asxaabta marka ugu horeysa application-kaas oo download gareysanaysaan waxaad tagaysaan Play Store markaad tagtaan waxaad ku qoraysaan Facebook maker ama Facebook post maker baad ku qoraysaan inta markaad ku qortaan asxaabtay marka reedkiisu yahay 3.9 yahay okay marka khadka imka yaraahyan marka linkiga xagga hoosan soo dhigaya marka asxaabtay okay aan ka gudbo marka waa ka linkiga xagga hoosan soo dhigaya doonaysan kaliya kala sarka okay aan u gudbo marka asxaabta application-ku waa ka application-ka asxaabtay waa ka post maker of Facebook ya asxaabtay okay marka waan ku duloofanaynaa markaan ku duloofano 3 step baad maraysaa waxaan qorayaa magacii baan ku qorayaa marka hore waxaan iska dhigi karayaa yani maanta waxaan iska dhigayaa Muuse Bixi waxaan iska dhigayaa maanta aniga kaliya magacaabaya Muuse Bixi waxaan iska dhigayaa magacaabaya dum Muuse Bixi qabsaday laadan maxaa samaysan asxaabtay ka musharaxaya okay marka halka qodobka iga sawirkiisa baan gelayaa asxaabtay sawirkiisa soo dhigaysa ayaan soo dhigo okay sawirkiisa waan soo dhigayaa marka waad rakad garanaysaa marka asxaabta intaa markaa tiraahdo create baa oranaysaa wixii baa la abuurayaa ama wixii baad doonaysaa inaad ku qorto okay halkaa dhexe ayaad ku qoraysaa marka halkaa dhexe asxaabtay halkaa dhexe ayaad ku qoraysaa marka wixii aad doonaysaa halkaa ku qoraysaa ama wixii aad doonaysaa inaad samayso ayaad ku qoraysaa marka waxaan odhanayaa okay marka asxaabta waxaan idhi marka halkaa markii aad wixii aad doonaysaa ku qoraysaa marka waxaan idhi waxaan xilka wasiirnimo ee arrimaha Facebook oo magacaabay Jamaal Yahawan okay inta markaan wixii aan doonay ku qoro halkaa sawirkii baa soo dhigaysaa sawirkiisa si ay background noqoto marka waa step saddexaad waxaa soo dhigaysaa background-kiisa waa soo dhigaysaa kaasaan soo dhigayaa okay waan oranaya marka okay waan oranaya inta asxaabta markaa tiraa saacadda la soo dhigay bartay ku qoraysaa saacaddu maxay ahayd inta doonaysa like inta doonaysa inaad halkaa like laga arka dhigaysaa waxaan oranayaa 10.k huwa caadi ma aha 10.k yaa share gareeyay waxaan oranayaa yes 4632 ayaan oranayaa k ayaan oranayaa yaa comment gareeyay waa xadkaan ka saaraya yani wala yaabaya markaan save gareyn Facebook ma soo dhigay okay inta markaan aan tigarayo waxaan kala asxaabtay waxaa sameynayso kuma ama like hadaa sameynayso okay waan jees waka eeg muxuu yiri okay marka asxaabtay halkaa waxaad sawirkii wixii aad doonaysay soo dhigaysaa sawirkii cidii aad doonaysay wax laga sheegay tusaale aniga ayuu xilli magacaabay marka anigana sawirkayga soo dhigtaa marka halkaa waan sawirkayga soo dhigtaa okay waan sawirkayga soo dhigtaa marka kii doonaya waxaan xilka wasiirin Facebook u magacaabay eego Muuse Bixi sawirkiisu yahay idinkaarkaya yani waa okay weeye laba saacad ka hor badan soo dhigay marka 10.k ayaa laga saartay comment intaas maraya share intaas maraya yani waa reality weeye
hadhow markaad save garaysato soo dhigto yani wixii reality noqonaya. marka asxaabta intaasaan idin soo gudbinaya. haddaad doonaysa save garaysa halkaas ku dhufanaysaa, haddaad doonaysa save garaysa halkaas ku dhufanaysaa. okay halka markaad kusii dhufanaysaa markaa kusii dhufato save fadanaysaa markaa automatic ku save garoosmaya. marka asxaabta intaas soo gudbinaya 10 ka shay share like subscribe asxaabta. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.